الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد. دawada meel kasta duunka joogtiin kusoo dhawaada koorsadani VB. halkan laga socotaa waa YouTube channelkeena Weena Production. Waxaan soo sameynay projectii calculator-ka ahay. Maanta kaliya waxaan rabaa inaan tuso sidee maaragtay marka loo soo saaro macnaha export loogu sameeyo oo loo soo saaro projectii aan sameeyno application shaqeeya looga dhigaa macnaha. way aniga alfasasto ka isticmaalaa weeyaan waa Express Microsoft Visual Studio 2012 marka xawa badan asaas uma fiicno marka aad waxaa sameeysaa markaas waxa ku qoran meelaha waxa ku qoran oo start actiisa bill aan ku qoran macnaha bill aan ran aan ku qoran kadib halkaas ayaa tax siinaysa macnaha ana hadda debug iyo meeshan kaliya u qoran ama bill kaliya kadib halkaas ay ku dhufanaysaa macnaha way waa ku dhufanaysaa kadib saas ay ku sameeysaa wax yar ay qaadana ama ku sameeysaa macnaha way kadib waxaa tagtaa ani meesha ku jiro meesha ku jiro software kaada macnaha waa kan Visual Studio 2012 waxaad tagaysaa halkan kadib waxaad tagaysaa qaybtan projects-ka ayaa tagaysaa macnaha project waa kan calculator-ka sameeyno waa kan halka project ayaa ku jiro dhowr kid ayaa leedahay kid labadan ku soo saaray kid ayaa leedahay kadibna mees bin ay ku qabanaysaa debug ay tagaysaa waa kan macnaha application-ka hoos noo sameeyay midkan u koreeyo u jeedaa macnaha way waa kaas kid ayaa leedahay uu shaqeynaya macnaha way 10 lagu daray 10 way isku darar leenahay waa 20 waa kaas macnaha project oo shaqeynaya macnaha hadda waa kana koob ayaan soo leeyahay kadib way meeshan aan iska wada qaadaya way halkan ayaa dhigaya waa kaas macnaha way application-kii waa kana oo shaqeynaya computer kasta lagu shubi karaa oo shaqeynaya macnaha way ay computer waa lagu shubi karaa waa ma application shaqeeya waa macnaha way 20 ka jar waa ever waa kaas macnaha waa application dhammaystiran oo shaqeynaya macnaha marka saas ayaa loo sameeyaa diyaartid inaad maaragtay soo saartay macnaha way marka cashka dhaxshu inta soo ma sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi